ficiladii xumaa ee dhacay ee ka soo iyo go'aamadii ka soo yeeray golihii maamul goboleedada haraadigii tigreega maxamed ilay iyo gabre waxaan rabaa in aan maantayto halkan aan fikirkayga ka soo dhiibto soomaali wax badan baan la hadlay soomaali wax badan baan u sheegay soomaali waxa weeye barnaamijka ugu dambeeyey oon hadda telefishinka RTN aan ka sii daayey waxaan ku qatimay gabay waxaan ku qatimay la yiraahdo waxaan ku qatimay gabay aan Axmed Madoobe kaga hadlahayo afkiisa iyo uurkiisu inaysan islahayn waxa weeye ficilka afka wuxuu ka leeyahay wax ka duwan uu ka samaynayo waxaan ka sii layga wareysanayay koow markuu bilowdayba barnaamijku waxay noqotay sidii aan sheegay ayay ku dhamaatay laakiin hadda Soomaalida ayaan daro qof inta ku yimaado kule warniyow arrintaasi arrintii aad sheegtay way dhacday ma ahayn arrin badane wuxuu ahaa gabaygii ugu dambeeyay ku qatimaya arrin badane oogada lala oo caabuq talinaya caqli caafimaad lagu hubo oo orod yar baa dhaama oday reerka lagu aaminay oo agabaryeynaya agoontii caruuraha ninkii ururiyaa dhaama ugu baan asluubiya lahayn ila xir maamuus leh haba agab yaraatee carmeli edab labaa dhaanta eebada intuu kugu mudo araxda kaa toogto af macaana kula ooyayo uurka kuu dabaya abees micida kuga aasay ood aragtabaa dhaama inankaan amaalkooda gudin aabba iyo hooyo adoogi lanaad inan yar oo idif labaa dhaanta ergab midah islaam wada jiro kala adeegaayo alla ilaahay colaad qaawan oo la ogyahaa dhaanta inkastooy ogaali'iddaadoo gugu irmaanaado dooggaan orshoonayn kaliil ebaraha dhaanta kaliil omasaha dhaanta isagoo ammaantaada wada uubna kuu qodaya laba afle kuu imaanayood ehel la moodayso ulajeeddo gaarna wato cadow ku aargoosto aqoon darane iimaan leh oo ku oggol baa dhaama waxaan kula hadlahaya shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegahayay afka iyo uurka ninka la yiraahdo Axmed Madoobe inaysan islahayn maxaa ka soo baxay waxa ka soo baxay wixii la ogaa federalismka waxa weeye arrintan federalismka war federalismku waa fitnatul qarni waxa weeye waa kala go'eena 4.5ku waxa weeye waa kala jarkayga waxa weeye qofka in akramakum cindallahi atqaakum shacabka Soomaaliyeed waxa weeye waxay isku dhaami karaan ilaaha subxaanahu qaadirka waxa weeye ninna isagoo bara boqorkay ma uumine baxri shiiqooyskii dadka diinta bari jiray bahooska alla noo dhigay bal saqaawdiin daya ma barba ma buuxa mise waaba birimo dadku baacdan dheeriya war marka 4.5 lagu leeyahay ood ogolaanayso marka lagu leeyahay federalism ood ogolaanayso resultigoodii waa maanta ayuu yimid hanaqaadka dawladda hanaqaaday adduunka aan wax la qabsanay annaga iska dhaaftaayadii intaan kaamilanay siyaasadeedii dibadda aan u kala dabqaadanay geeska Afrika oo dhan waxa way isbedelkii 8 February waxa ka bilowday maanta inuu inta tago ilays u noqdo lagu wada daydo ummadii oo dhan is qabsato raas dumeero la soo celiyo walaalaha Djibouti dhulkoodii la soo celiyo حتى كوا سياسيين آخر السبنك حتى الدولة دي ويكون عليه أنت أصوات ضد إنه كنت دكتور ورمحا أنا الراس دميرها دان هلو دان دول كي جمعنا ولا لا يجبوت أنا هلو إنا كنت دقيقة إنا كداهو محا إنا بكنت دقيقة بقى هاي فدراليزم كي سومالي وحندين شيء جيا this is the result دي أنت فدراليزم كي واكن ما أنت أيو يمد وادوتشدين وحويه وحندين شيء جيا والمرة لبعض إن الشعب كسومالي ده الربع إنا كل عليو ورمانتيتو waxaanu leenahay choice dastuurkii wali waa qabyo war 4.5 laga noqdo war laga noqdo federalism war dadkan waxay maanta lugaha ku dhagan yihiin qof iyo cod in la gaaro dadkan waxay lugaha ku dhagan yihiin inaan dhulkayga soo ceshano dadkan waxay lugaha ku dhagan yihiin bal fiirsha waxa weeye malagu hadile Michael Keaton iyo mahigaaba naloo qaatay bal fiiriya markuu tagay oo uu tagay Puntland iyo Somaliland ayaa waxa weeye tukaraq dagaal ka bilowday Michael Keaton markii hadda Kismaayo uu tagay asagoo gabaabsi ah ayay waxa weeye aad u jeedaa waxay go'aankii uu siiyay waxay ahayd si gumaystaha gacantiisa dib loogu soo celiyo dawladana road map iyo in that case qodob la yiraahdo dib loogu celiyo ayay waxay noqotay shacabka Soomaaliyeed nimankii aad ogeydeen oo warlordkii casriyeysnaa aha oo SSDF iyo SNM iyo SBM iyo SSST oo kala aha oo jamhadaha aha waxay dhaheen dawladda shaqo kuma lihin war waxaas ma wax loo dul qaadan karaa marka aad tiraahdo war maxaa dhacayna waxa weeye saddex baa lagu xalaaleeyaa marka la yiraahdo waagii hore hadda isbedelkan Ethiopia ka sokay ka dhacay
wixii ka horreeyey markii la yidhaha war Ethiopia aan iska dhicinno war Gabre aan iska dhicinno ma Ethiopiadan waa Ethiopia cusubo waxa weeye maanta tabar ma lihin waxa lagu xalaaleeyaa xageena 1964kii markii la leenayo 4 sano kaliya aanu jirnay oo waxa weeye xalana ay dhimanayeen oo la ogaad intaas oo magaalo aan ka qabsanay intaas oo wadan 77kii inta maanta PhD iyo aqoonyahan noo joogta iyo dawladnimada aan haysan miyaan haysan ma aanan haysan waxa weeye waxaan ahayn dad curdun oo 4 sano kaliya jira iyadoo oo waxa weeye boqor Najaashi aad ogeyteen oo Nabi Maxamed kaleey salaatu salaam saxaabada rasuulka ku soo dhaweeyay barakallahu bi ardul habash la yiri oo waxa weeye waligood la gumaysan ayaanu dhagaha ku dhufanay markaas waxana la dhihi jiray laga gadi jiray marka si weyn misfin iyo malas iyo Gabre iyo ay joogeen waxa la dhihi jiray waxa weeye hanagu taabanina fidnada maanta waxa weeye Michael Keaton oo tagaya iyo waxa weeye malas sanaawi maamulkiisa meesha ka baxay ayay waxay rabaan maqalle iyo Tigray in inta u hiiliyaan ay political bargain waxa weeye nalagu galo oo inta nalagu gorgortamo aan waxa weeye ay sheeg aan ay jilbahana qabsadaan maamul goboleedadaas marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa maanta live-ka u soo galay warnimayo fidnadan federalismka waxa lagu xalaaleyn jiray waxay dhihi jireen hadda waa la istiriray waa la kala aamin baxay qof walba inuu meeshiisa nabad ka dhigto war laba ceeriin ku qaybsatay bisayl isku kuma timaado waxa weeye mar hadii wixii la kala qaato oo lahaanshihi uu dhamaado oo qarannimada ay dhamaato adeer waxa weeye haba yaraatee wax meesha ku yaala ma aha barnaamijyo badan baan uga wada hadli doonaa arintan maamul goboleedada waxaan leeyahay hadda ka hor baa nin xamaaliyo wuxuu yimid Soomaaliya markii 91kii ay dhacday burburkii oo sinaan ay wada dhacdo cagabarar u dhaco gaaja dhacday baa mid wuxuu yimid meel niman xamaal ah oo gaari ka dajinaya Sankor markaas yiri waranayna xabada la isaaro xamaali baan ay saroorumaa ka joogtay hal ay saaro iska daayay markii 100 kiilo jawaana dhabarka loo saaray ayuu inta la yiri adeer iga qaad kan maaha xamaaligii aan aqaanay kar ma ahane waxa weeye suufkan xamaali jiro fudud iga qaad Sankorta ma qaadi kare siyaasad xumadoodii waxa weeye maantayto ragii meesha iskugu tagay waxay noqotay inay cimrigooda gaabiyaan waxa noqon doontaa waxa weeye inay Arab Spring dhacdo waxaan u sheegi doonaa ugu baaqayaa dadweynaha waliba aan u hambalyeeynayaa walaalaha reer Puntland wiilkii soo qoray madaxweynuhu wadanku madaxweynuhu leeyahay iyo dhalinyaradii ku taageertay waxaan leeyahay noolaada waxaan idin sheegayaa adinka ayaa iska leh awoodda shacabka iska leh nimankaas waxa weeye maanta waxay hor taagan yihiin in horumarka iyo Soomaali inay midowdo iyo inaan bahalkii taladeedu hal meel ka go'do iyo inaan adduunka hal qaran aan uga qayb qaadanay diidayihiin shacabka Soomaaliyeed marka waxaan ugu hambalyeeynayaa warkaca Arab Spring oo dhan kacitaanka waxa weeye kacitaanka ama banaanbaxyada Arabtu hal wiil oo Tunisian ah oo intuu shaqo doontay waayo isgubay bay ka bilaabatay war miyaanaan arkayn wax badaha ku dhamaanaya war miyaanaan arkayn future-kiina in la isku haysto war miyaanaan arkayn waxa weeye inay nimankaanu ay qadadoon yihiin aysan qadiyad lahayn war miyaanaan arkayn nin weyn baa inta yimaado shirka wuxuu la soo hadlayaa intaas oo 100 baa la siiyay adeer dekadii Kismaayo yaa kugula xisaabtama adeer dhuxushaad iibinaysa yaa kugula xisaabtama adeer dakhliga international community ay ku siiyaan yaa kugula xisaabtama adeer Michael Keaton wuxuu rabaa inaan dawladda arago markii uu tan halkii jawaano Muqdisho loo keeno oo Soomaaliya oo ka wada dhaxaysa Kismaayo inta la geeyo waxa weeye waa lagu wada xisaabtama adeer waxa weeye yaa ka aaway maamul xumadooda nimankaanu nin daad qaday xumbo cabsikay weeye waxaan maanta fursadan uga faa'iideysanayaa shacabka Soomaaliyeed inay uprising sameeyaan meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa shacabka dhalinyarada waliba waxa la isku haystaa waa mustaqbalkiini waa future-kiini magaalada Muqdisho waligeed baa iyada xornimadu ka bilaaban jirtay reer Muqdisho waa inay banaanbax dhigaan waa inay uga soo horjeestaan waa inaan waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nimanka nabad wax uga doonin waa inay nimankaas waxa weeye madaxweynaha waxaan leeyahay ergamida islaam wada jiro kala adeegaya alla ilaahay colaad qaawan oo la ogyahay dhaanta madaxweyne maxaa nimankan laga barbarayaya mar hadii ay waxa weeye wixii la ogaa ay la soo ay wax la soo dhitinayeen haday banaanka soo dhigeen maanta ay dhaheen anagu qaran ma aaminsanin xukuumadda nama haysato constitution-ka ninka jabiya asagana kiisa xunka waa la jabinayaa dastuurkiisa la jabinayaa bal alxamdulillah what goes around comes back around dhibaatada ku dhacday madaxweyneyaalka xogeenkoodii ayaa markiiba naqdiyay waan u hambalyeeynayaa Carabe iyo waxa weeye magaalada la yiraahdo halkan shirka uu madaxweynuhu ugu baaqay anigu waxaan jeclaan lahaa waxa weeye kala bax kitaabada qabe in aan nimankaasu waxa weeye banaanka in lacagta laga jaro
in international community-ga la yiraahdo ma dawlad baan nahay mise dawlad ma nahin anu waxaan qabaa dadkaas waxa lagu naacinaya baadil baa shalaba lagu naacinayay maamul goboleed bay ahaayeen waa inay haddaysan xisaab celintii soo samayn uu wasiirka maaliyadda uusan samayn inaan xiriir la soo celin waxaan anigu aaminsanahay in waxa way dhaqaalaha laga gooyo waxaan anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol shacabka Soomaaliyeed today is our day maanta waa maalinteedii waxaad haysatiin xukuumad waxaad haysatiin dawlad waxaad haysatiin shacabkii oo wax walba in la baraarugaa ka muhiim